Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawo channelkeenan KMB. Muuqaalkeenan maanta wuxuu ku saabsan yahay sheeko yar oo dhiirigelina. Sheekadaana waa sheekadii jiraqaaga iyo quraanjada. Haddaba kusoo dhawow sheekada. Maalin maalmaha ka mid ah dhulkuna yahay barwaaqo guguna wuu da'ay si fiican ayaa waxaa jiray jiraqaa aad buuna u faraxsanaa wuuna tamashlaynayay sababtoo ah waxay ahayd waqti wanaagsan xaguu jiraqaa ka baashaalayay quraanjadu waxay keedsanaysay hadhuudh ama badar jiraqaagu markuu arkay dadaalka iyo waxqabadka quraanjada iyo iyada kolba dhinac u dhaafaysa ayaa wuxuu u soo jeediyay inay ku soo biirto baashaalkiisa iyo farxadda uu haysto hase ahaatee way ka diiday fikirkii uu soo bandhigay shaqadeedii ayayna iska sii wadatay ilaa uu gugii ka soo idlaado maalin walba ayay shaqaynaysay quraanjadii xagga jiraqaagu uu ku dhex lumay baashaalkii iyo quruxdii guga marba quraanjada ayuu fiiriyaa si jees ah ayuuna ugu dhahaa maxaad sidaasoo dhan isugu dhibaysaa kaalay oo waqti ila yara qaado aynu wada faraxno guubaanu ku jirnaa maalmuhuna way wacan yihiin quraanjadiina waxay tidhi waxaan u kaydsanayaa cunto abaarta nagu soo wajahan adigana isla sidaa inaad samayso ayaa wanaagsan jiraqaagiina wuxuu yidhi maxaad isugu dhibaysaa abaarta hadda ayaanba haysanaa cunto aad u badan iyo sidoo kale waxaan haysanaa waqti badan oo aan abaarta isugu diyaarin karno laakiin quraanjadu way ogeyd waxayna sii wadatay shaqadeeda maalin walba quraanjadu way shaqaynaysay iyadoo aanan joojin ama aanan nasanin xagga jiraqaagii uu door biday inuu iska baashaalo oo uu iska ciyaaro isagoo aan wax walwala ka qabin mustaqbalka balse muun ka fikirin gugan qurxoon inuu maalmo kooban yahay abaar kulayl boodh iyo dabayl isku darsatay ay soo socoto muddo yar kadib gugii wuxuu isku beddelay dayrtiina waxay isku beddeshay jiilaal cadceeddu aad bay u kululayd waxayna noqotay kulayl mid la mid ah uunan soo marin dabayshuna hadba ay dhinac boodhka u waddo isla markiiba jiraqaagii wuxuu xaqiiqsaday inay quraanjadu ka saxsanayd ayna ahayd inuu isdiyaariyo haddase jiraqaagii uma faraxsana sidii awal hore baashaalkiisiina wuu soo afjarmay mayna ahayn inuu wakhtiga iska lumiyo intii uu barwaaqaysnaa ismadan ahayn abaartani way ka xumaan doontaa sidii hore waayo isagu muuna kaydsanin cunto cidnana kuma caawinin kaydsashadeeda ma laha meel uu kaga gabado cadceedda iyo dabaysha xitaa biyo yar uu dhuunta ku qooyo ma hayo xagga quraanjadu ay ku baashaalayso wixii cunto ahaa ee ay shalay kaydsatay daawade ma ka dhex aragtaa muuqaalkan adiga noloshaada maanta tabco beri bay wax kuu tariyee ku farax nolosha laakiin sidoo kale ku dhex dar wakhtigaaga xilli aad wax barato iyo xilli aad shaqayso ama aad isku diyaarinayso abaarta samayso qorshe oo u fiirso waxaad rabto inaad xaqiijiso oo bilow isla markaaba micnaha beri ha u dhigin waayo beriba beri ayay kuu dhiibi beri iyo beenna midnaba ma dhammaato ogowna bilowga unbaa adag mar walba hadba inta aad ku guulaysato waxyaabaha aad qabanayso sii laba jabaar waxqabadkaaga waxaan kuu rajaynayaa guul